waxaa u mahad celinayaa warbaahinta Nursum News mowduuca maanta aan ka hadlaynana waxaa waayo doorashada dhacayso bisha September iyo Soomaalida siday codka u bixiso ahmiyadda ay codka qofka inuu codka dhiibto ay leedahay haddaan fiirino doorashada 2017 waxaa cod bixin kartay 16,996 qof oo Soomaali ah doorashadan hadda nagu soo hor leh ee 2021 oo bisha ay ka harsan tahay waxaa codeyn karto dad dhan cadadkooda 22,942 qof farqiga u dhaxeeya doorashada 2017 iyo doorashada 2021 waa 6,000 oo qof oo cusub oo Soomaaliyeed ah ayaa sanadkan codeyn karto Soomaalida siday u codeysaa ama guud ahaanba haddaan dhahno ajaanibta 60% ajaanibta Asia ama Afrika ka timid qaaradahaas waxay u codeeyaan xisbiga Arbeiderpartiet badana Soomaalida ama haddaan dhahnabo ajaanibtaan isku qabanno markaan ilmaha Norway ku dhashay waxay u codeeyaan badana waxay waalidiintooda ay u codeeyaan oo kale haddii shakhsiyan aan Soomaalida fiirino guud ahaan Soomaalida 2% waxay u codeysaa xisbiga la yiraahdo RUT 21% waxay u codeysaa xisbiga SV 68% waxay u codeysaa xisbiga la dhaho AP ama Arbeiderpartiet loo yaqaano xisbiga Miljöpartiet Die Gröna loo yaqaano ama xisbiga ku takhasusay cimilada waxa u codeyso 1% xisbiyada kala aha Venstre ama KRF oo xisbiga Kristanka wadanka qof Soomaali ah oo u codeeyay marjiro percentage-kina waa eber xisbiga Hayre ama hadda talada xukunka dalka hayo oo ra'iisul wasaare Anna Solberg ay ka timid waxa uu codeyso 5% xisbiga bidix FRB ama cunsuriyada ay u yaqaanaan Soomaalida waxa uu codeyso 1% haddii aan u kala qaadno rag iyo dumar dumarka haddaan ku hormaro RUT ama xisbiga RUT la yiraahdo 2% oo Soomaali ah ayaa u codeyso xisbiga SV 24% oo dumar ah ayaa u codeeyo Arbeiderpartiet waa 65 dumar ah xisbiga SP waa 3% xisbiga MDG ama Miljöpartiet Die Gröna waa 1% Venstre iyo KRF qof dumar oo u codeeyay ma jiro Hayre 3% ayaa dumar Soomaaliyeed u codeeya FRB na waa 1% xagga ragga haddaan u imaado 2% ayaa u codeyso xisbiga RUT 18% oo rag ayaa u codeeya xisbiga SV Arbeiderpartiet waa 72% SP ama Center Party xisbiga loo yaqaano waa eber MDG ama Miljöpartiet Die Gröna waa 1% oo dumar ah xisbiga KRF iyo Venstre qof rag ah oo u codeeyay ma jiro xisbiga FRP na waxa uu codeyso eber xisbiga Hayrana waxa uu codeeyay 6% oo rag ah haday tawayir iloobay laakiin si guud ahaan cadadka xisbiga Center Party oo codeyso oo Soomaali guud ahaan rag iyo dumar marka la isku qabto waa 2% markaan fiirino ragga ama dumarka yaa codeyn badan ragga ayaa ka codeyn yar dumarka ayaa markasta ka codeyn badan ragga Soomaaliyeed haddii aan ka saarno Soomaali oo aan dhahno Norway dadka Norway codeeyo dhan markastana dumarka ayaa ka codeyn badan ragga guud ahaan lambaradaas ama mataqaana cadadkaas in la wadaagayay waa siday Soomaalida u kala codeyso iyo xisbiyaha wadanka ka dhisan siday ugu kala codeeyaan sida horeyba in ku sheegay lambarahan waxa loo kala qaadi karaa waxbarashada lagu xiri karaa shaqada qofka uu ka shaqeeyaa lagu xiri karaa daada ayaa lagu xiri karaa laakiin hadda gudaha uma sii galina lambarahan ahmiyada guud aan ka leeyahay lambarahan waa ina ogaano Soomaalida sidii ugu kala codeyso xisbiyaha dalkan ku nool waa mahadsantiin dhamaantiin